wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Ibraahim Aadam Qabyatire ayaa waxa uu ka warramay muhiimadda uu yeelanayo qalabkaasi oo iskugu jira isgaarsiin casri ah iyo gaari nooca B-kabka. maanta waxaan halkan oo bishii afraad afarteedii 2017 aan ku wareejinaynaa guddida komishanka qaranka. waxaan ku wareejinaynaa laba itemka koowaad oo ah warskaarsiin casri ah oo runtii aan isleeyahay wax badan bay ka anfacaysaa komishanka qaranka maadaama imanka u tafaxayteen oo ay doonayaan inay qabtaan inay qaybiyaan kaararka diiwaangelinta. qalabkaasi waa qalab casri ah oo ay ku wada hadli doonaan komishanka intooda madaxda iyo inta la shaqaysa goboladoo dhan center point uu noqon doona komishanka guud ee qaranka Hargeysa. waxaan kaloo ku wareejinaynaa gaari pick-up ah oo ugu talagalay isaga laftiisa warskaarsiinta inuu ka qayb qaato. qalabka uu wareejiyo mobile team uu noqdo si aanay u dhicin iswaaq ama aanay u dhicin qalab meel laga waayo. mobile team kaasna uu ka caawin doono gaari runtii haysto si fiican. waxay wasaarad ahaan iyo ka xukuumad ahaan waxaanu diyaar u nahay in ay doorashadu waqtigeedii dhacdo oo aanay dib u dhicin. maanta waxaanu kala wareegnay wasiirka qorsheynta qalab isugu jira qalabkii isgaarsiinta oo dhammaystiran oo aan ku hawlgeli doono kaar qaybinta operationkeeda iyo baabuur B-kaba oo isaguna isgaarsiinta ka qayb qaadan doona iyo tiimamkayga mobile. waxaan ugu mahadnaqaynaa wasiirka qorsheynta qaranka sida hal iyo habeen uu la garab istaagay ama uu u garab taagan yahay komishanka doorashooyinka qaranka waqtiga barisaabka ka ahaa gobolka Togdheer. gobolkaas oo ahaa gobolkii ugu horreeyay diiwaangelinta ka bilownay. hal iyo habeen sidaas noola shaqeynayay, noo xuseeyay, noo garab taagnaa. maantana way sii socotaa. abaal weyn buu ugu leeyahay wasiirku haddana nahay komishanka doorashooyinka qaranka isaga iyo wasiirada kale ee komishanka la shaqeeya uga wakiilka madaxweynaha qaranka. waanu mahadnaqaynaa sida wasiir Samson iyo Maxamed Xaashi. madaxweynahana legasigiisii ahaa inuu ku wada shaqeyno inuu ka tago iyadoo ay u dhacday wadankan doorasho xora xalaala waqtigeediina dhaafay. taasaan ku shaqeynaynaa aanu ka codsanaynaa dadweynaha xisbiyada iyo wasiirada la midka ah wasiir Maxamed Ibraahim oo kale inay nagala shaqeeyaan sidii hawshaasi loogu soo geli lahayd.